muuqaalkana maanta waxaan oga hadlaynaa mobilka cusub ee soo baxay ee maalmahan baraha bulshada haystay ee Tesla Buy. awood badan taleefanada hadda jiro ayaa sidoo kale waxaa la bedelay positionka ama booska kaamirada hore ee taleefanada ay ku taalo ee ahaa kor waxaa loo bedelay hoos, yacni si looga hortago in kaamirada laftirkeeda dadawaatemeydii markii laga soo bilaabo adduunka wuxuu ku tartamayaa soo saarinta mobile cusub kuwa ka casrisan kuwa maanta la isticmaalo. waxaan xasuusanaa shirkadii caanka ahayd ee Nokia oo kamid ahayd shirkadihii ugu horeeyay ee mobile soo saarto haddaysan ahayn tan koowaad ee mobile soo saarto inay burburtay. sababta ay u burburtay waxa weeye adduunkan casri soo noqonaya ayaa dib u dhacday. 2000 ayaa la mariyay, 2005 ayaa la mariyay, 2010 ayaa la mariyay. waxayna soo saarisay Nokia la isticmaali jiray 1970 halka shirkado sida iPhone ay soo saariyeen mobile iPhone ah, dhanka Samsung ay soo saariyeen mobile cusub oo Samsung ah. waana sababta ay Nokia hawada uga baxday sida la sheego. markii la fiiriyay Nokia inay hawada ka baxday waxaa bilowday tartan dhanka mobile soo saarista khaas ahaan Samsung iyo iPhone. laakiin hadda waxaa soo baxay shirkad cusub, shirkadda oo iska leeyahay ninka bilyaneerka ee Elon Musk ee Mareykanka u dhashay. ninkan oo suubiyay dhaqaale aad u badan intuu xilka hayay Donald Trump. dadka qaar ayaa waxay sheegaan in uu gacan ka siiyay Donald Trump, laakiin ninkan ayaa wuxuu la yimid fikrado aad u wanaagsan taasoo uu ku horumariyay mashruucyadiisa iyo shirkadooyinka uu iska leeyahay ninkaas ee Elon Musk. hadda Elon Musk shirkadiisa Tesla waxay soo saartay mobile ay ugu magacdareen Tesla Buy. mobilkan ayaa maalmihii u dambeeyay baraha bulshada haystay, waxaana la sheegay in uu hawada ka saari karo mobilada iPhone-ka ee shirkadda Apple ay soo saarto iyo Samsung ee shirkadda Samsung ee South Korea laga leeyahay ay soo saarto. la arki doone waxa dhaco, laakiin Tesla Buy sida ka muuqato iyo sida macluumaadka qaar ay sheegayaan waa mobile aad ugu quwad weyn iPhone iyo Samsung. Tesla Buy waa maxay sababta uu baraha bulshada maalmahan u haystay? waa maxay sababta la leeyahay wuxuu hawada ka saar doonaa iPhone iyo Samsung waxayna noqon doonaan Nokia haddaysan tartan isku diyaarin iPhone iyo Samsung. sababta koowaad waxaa internetkiisa si toos ah looga isticmaali doonaa satellite-ka. adiga oo aalad taleefan ku jirtay, adiga oo isticmaalayo mobilkan internetkiisa waxaad ka isticmaalaysaa satellite-ka, waxaana ku fududeynaysa aalada mobilkan ku jirto ee la dhaho Starlink. sababta labaad maskaxdiisa ayaa waxay noqon doontaa 2TB taasoo ah 2048 gram. waa la yaab in uu heerkan gaaro maskaxda mobile. waxna ku arso garta dunyadan wixii ka dhaco intaas ma kaftan. qodobka saddexaad waa qodobka ugu muhiimsan ee dadka qaar ay leeyihiin wuxuu hawada ka saari karaa iPhone iyo Samsung, waana in uu mobilkan kaamiradiisa ay noqon doonto 108 megapixels sida la filayo. iPhone 13 oo weli la soo saarin ayaa kaamiradiisa waxaa lagu sheegaa 12 megapixels, taasoo ka dhigan in iPhone iyo Samsung ay isku diyaariyaan tartan caalami ah. mobilkan Tesla Buy waxaa soo saartay shirkadda Tesla ee ninka Elon Musk oo iska leeyahay. tartan cusub ayaa u bilowday. haddii ay tartankan ku guuldareystaan waxay noqonaysaa inay noqdaan kuwaas sidii Nokia ku dhacdo kale. adduunkan wuu sii horumarayaa, maalin kastana waxaa la soo saaraa wax casri ah. haddii ay soo saari waayaan waxaas casriga ah waxay noqon doontaa inay iska burburaan sidii Nokia ay noqdaan. waan arki doonaa tartanka cusub ee u bilowday Tesla Buy, Samsung iyo iPhone.